السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي ku xiran YouTube kayga waxaan leeyahay ku soo dhawaada YouTube keena si aad u socotid program keena mar walba hana ka maqnaan hana iloobin subscribe share comment like bulshayahay aqoontiyo ku dadaala waxbarashada bulshaya asxaabteeda maanta programkan wuxuu ku saabsan yahay dhibaatada ka jirta magaalada Muqdisho qaasatan dhalinyarada iyo wasaaradda waxbarashada sida ognahay dhalinyarada wadan walba dhalinyaradiisa ayaa dhista dhalinyaradiisa ayaa wax qabata dhalinyarada waa u wax wadanka waa mustaqbalka bari iyo saadambe waxaan rabnaa inaan ka hadalno ardayda maxay ku qaldiin maxayna ku saxayeen ardayda qaladkooda ugu weyn wuxuu ahaa inay soo baxaan wixii la dhisay sida laamiyada oo waxyada lagu beer inay jijibiyaan inay u dhaqmaan sida mooryaanta oo kale aadan u xunnahay waxaan leenahay arday dhaqankaas ma laho dadka wax soo barteen waxaan leenahay inay ka waantoowaan wadanka adiga laga rabo inaad dhistid maahan inaad dudumisid maahan wasaaradda waxbarashada imtixaanka haddii la xaday iyo haddii uu baxay waxa mas'uul ka ah waa idinka ardayda waxaa jirta dad aan awoodin garaaca waxaana jira dad aan awoodin inay wadooyinka waxaan awgiisa inay iskuulka soo gaari karin dhibaato waxa ku soo gaareen in ay iskuulka imaadaan imtixaan sameeyaan haddaad ehda imtixaankii waa ka kansalnay waa inaad raaligelin ka bixisaan inkastoo ay cadaalad tahay waayo qishka hataa ilaahay uu diiday xaqna ma ahan wax walba waxaa wanaagsan inay ku socdaan straight laakiin anaga sidaa ognahay reer Muqdisho haddaan nahay musuqmaasuqa waa ku soo kornay waana ku soo barbaarnay haddii arday nahay iyo haddii shacab nahay fadlan mar walba waxaan leenahay dhalinyarada haka waantoowaan dhibaatada ay ku hayaan dowladda dowladdan waxaan leenahay dhalinyarada ha ku fiirso il gaar ah waa dadkii berito bedeli lahaa waa dadkii berito wadanka dhisi lahaa waa dadkii berito mustaqbalka ayaha wadanka toosi lahaa